السلام عليكم وسلامتين دبانتين كوزو دواada mar labaad video na tusaysa sida loo dhiso virtual machine videoga hore waxaan kaga hadalnay sida loo download gareysto software-ka la yiraahdo VMware player VMware workstation player ee kugu caawinayo inaad machine kale computer kale aad ku dhex dhisato computer-ka gaar ah oo haddii aad rabtid inaad wax ku tijaabisid software aadan rabin inuu computer-kaada kale taabto oo gaar ah haddaad rabtid markaas waxaad dhisanaysaa virtual machine gaar ah ee ku dhex dhisan computer-kaada marka haddii aad rabtid inaad furtid virtual machine jaar dhisan oo lasoo diyaarshay oo USB drive lagugu soo siiyey ama aad soo download gareysatay open baa leeda markaasna wuu raadinayaa file noocaasa VMX oo OVF ama OVA noocaas uu raadinaya laakiin hadda anaga koobaan ka soo dhiseynaa marka waxa leedahay create virtual machine marka wuxuu ku leeyahay xagee ka keenaysaa operating systemka macnaha ma Windows ma Linux markaasna ma DVD buu kugu jiraa marka aniga hadda DVD iguma jiro waa file operating system ah oo dhex yaalo computer-kan aan hadda isticmaalayo computer kastana wuxuu u baahan yahay operating system waa hanaanka uu computer-ka u shaqeyn lahaa oo wixii maamuli lahaa maskaxda iyo memory-ga iyo drive-ka meesha lagu xareeyo faylasha iyo waxyaalahaas marka operating system-ki browse baa leeyahay Windows 7 waaye waxa aan rabay inaan install gareeyo waana image soo ma jeedid CD-ROM images ISO marka aniga waa file ahaan hadda dhex yaala desktop-ka soo ma jeedid marka saas baa iska leeyahay marka wuxuu leeyahay waka Windows 7 buu arkay oo uu soo helay marka wuu garanayaa marka next baa leeyahay key buu weydiinayaa key ma hayo oo waa iska demo arrintan marka waxaan leeyahay demo 1 ama markaas hadhowti markii Windows-ka waa inaad gelisid license aad gadatay marka password uma yeeleno ha iska furnaado computer-kaas laakiin waxaan waa username-ka aad ku geli doontid Windows hadhowti next baan iska leeyahay markaas wuxuu ku leeyahay you did not enter Windows product key Windows will install without one but must be manually activated later will you like to continue marabtaa inaa horay u sii socoto adoona haysanin furihi laakiin waa inaad gadaal ka geliso marka Windows badanaa waxay ku siinayaan Microsoft 30 maalmood ka dambe uu ka dhaca marka anaga maadaama waxaan iska tusaale yihiin yes baanu leenahay markaas next iska dheh wuxuu leeyahay meesha uu wax ku xareysanayo computer-ka space inta like baa rabtaa inaad siiso maadaama waxaan demo iska tahay 20 gigabyte baa siinaya mar raba inuu space badan iga cuno recommended waaye waa wax loogu talagalay laakiin uma isticmaali karo doono wax kale marka way ku filanta 20 gigabytes marka kasii soco marka wuxuu ku leeyahay wax kasta waa sidaas uu soo helay marka wuxuu leeyahay daar markii aad dhameysay installation-ka waaye marka uu bilaabayaa creating disk so markasto waa joojinayaa markii uu waxyaalahan sameynayo si aysan video-ga u dheeraan hadda Windows installation-kii waa dhameeyay so Windows-kii u dhisaya waa kana wuxuu leeyahay ma rabtaa software updates-ka macnaha Windows tools waxyaalahan waxay fududeynayaan in misaal la isticmaalo computer ku sii dhex jiro computer-ka laakiin remind me later iska dhig gadaaliga soo xasuusi marka waa kana installation-kii Windows uu socdaa soo ma jeedid maxaa la jiray marka waxaan xogaa waqti yar bay qaadanaysaa marka waa joojinayaa ilaa uu gaaro meesha si uusan video-gan u dheeraan wali installation-ka waa socdaa hadduu 50% kor u dhaafay marka waa joojinayaa so wuu dhameeyey marka hadda way virtual machine-ka wuu isdaminaa markaasna wuu isdaaraa markaas ka dambe waxaa gelgelinaynaa username-kii password-kii iyo waxyaalahaas halkaas baana kasii soconaynaa wakaas uma jeedid waa computer ku dhex jiro computer kale hadda macnaha computer-ka ku duubay video-ga
hadduu isdaminayo oo isdaarayo videogan ma duubi lahayn moogta marka mashiinta ku dhex jirta waayo waxaan isdaminayo oo isdaarayo waa markii ugu horeyso oo ay mashiinta soo kacayso kana waka installation kii weli ma dhamaanin actually hadduu dhameenayaa waxay u egtahay inuu isdaarayay waka your computer will restart several times during installation marka weli muusan dhameen hawsha siday u egtahay marka waa joojinaya video waxay u egtahay hadda inuu dhameeyay marka bal aan aragno waxa ka soo baxo soo ma jeedid computerkii kale waa kan aan isticmaalayo ku shaqeynayo laakiin waa kana computerkan virtual machine-ka ayadaba isdaaraysa hadda oo maxaa la jiray waqti markii ugu horeysay ee la install garay marka weli uu shaqeynaya uu isdiyaar gareynaya updateski wax kasto marka waa computer gaara wakaasa waqtigiisa waa saxan yar runtii marka homework wuxuu ku weydiinayaa network uu ku xiran yahay guriga buu ku xiran yahay waa iska leedahay daar rabtid laakiin waa iska cancel kartaa laakiin hadda waa kaasa waa computer buuxo oo gaar ah oo waxa doontid aad ku dhex sameyn kartid laakiin ka go'an computerkaada kaleeto so computerkayga kaleeto waa kan Soomaa daar rabtid marka hadda software ka shakisanto isleeda tolo ama ka hadlaya computerka waxaa dhisanaysaa virtual machine markaas virtual machine-ka ku dhex isticmaalaya software-ka markaas haddii ay virtual machine-ka haloodo mid kale un baa dhisi kartaa waxay kugu qaadanaya waxaana ka badnayn 20 daqiiqo marka wakaasa waa ku mahadsantihiin inaad fiirsateen videogan khair baan idin